wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay waday qorshe ay ku nidaaminayso magaalooyinka dalka. haddaba qorshahaas iyo qaabka nidaamka ay wasaaraddu wadaba si telefishinka Ariel xog dheeraad ah uga helo waxaanu xafiiskiisa ku booqnay agaasimaha waaxda dhulka iyo guriyeynta ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta injineer Maxamuud Maal Cali oo isagu qorshaha arinta wasaaraddu waday madax ka mudane agaasime haddana waxaad ka soo laabatay Boorama qorshaha magaalooyinkana weydii kan waday bal faahfaahin naga sii qorshahani waxa uu yahay badriyo aad baad u mahadsan tahay waa sida aad u sheegtay wasaaradda howlaha guud waxay ku hawlanayd muddooyinkii dambe ka hawlgalka naqshadaynta magaalooyinka sidaa daraaddeed sidaad la socotaanba waxaanu ka bilownay degmada Wajaale magaalo ganacsiyada Wajaale ilaahay mahadii si fiican bay noogu fushay hawshaasu waxa xigtay degmada Gabiley oo iyadana aanu qorshihii u sameynay budgetkana ay ku darsadeen 2019 waxa noo xigtay degmada Boorama oo aanu wiigan ku soo wareejinay iyadana gacantana aanu ku hayna naqshadii budgetkii ku baxayeen aanu maayarka ku wareejinay waxa hadda injineeradii ku maqan yihiin oo ay feasibility study ka soo sameynayaan degmada Laascaanood waxa iyaduna qorshaha noogu jirtay in sanadka 2019 ka iyadana town plan loo sameeyo sidaanu isku afgaranay duqa degmada Ceergaabo sidaa daraaddeed hawshan aanu wadnaa waxay ka mid ahayd mandate-kii wasaaradda mudane agaasime arrintan hadda aad wadaan ee qorshayaasha magaalooyinka aad kala nidaaminaysaan hadda waxa jiray guryo badan oo dhisan 7 sano ayaa dhisma ku socday oo ay magaalooyinku fidayeen tusaale ahaan magaalooyinka qaar Laascaanood ka mid tahay waxa la leeyahay inaad ayar arrinta ka fulisaan diima suurta galayso arrintaana maxaad ka leedahay mushkiladaha dhismayaasha soo gala wadooyinku Laascaanood kuma koobna dalka waa mushkilad ka wada jirta degmada Laascaanoodna sidaanu anagu qabno degmooyinka laga fulin karay ka mid tahay wasiirka wasaaradda howlaha guud muddo ku maqnaa imika qoliyaha dawladaha hoose ganacsatada iyo maamulkii degmadaba way ka wada hadleen mudane agaasime waxa la yiraahdaa qorshahan hadda wasaaradda howlaha guud wadaan waa qorsho shaqo ay iska lahaayeen dawladaha hoose ee dalku oo wasaaraddiiba ka faramaroojisay bay dadka qaar leeyihiin arrinta maxaad ka leedahay sharciga dhulka ee baarlamaanku ansixiyay la yiraahdo law number 17 ayaa qeexaya mana aha wax shaqo ku cusub wasaaradda howlaha guud oo imika ay qabato xilligii burburka ka hor 1979 ilaa mustacmaradii Ingiriiska wixii dib looga noqdo 79kii qorsheynta iyo qaybintaba waxa gacanta ku hayn jirtay wasaaradda howlaha guud taliskii militariga ahaa ee Maxamed Siyaad Barre ayaa 1979 June 24keedii wuxuu soo saaray markii uu abuuray golayaasha deegaanka in qorshahana howlaha guud leedahay qaybintana ay leedahay wasaaradda howlaha guud 1983 ayuu sharci labaad soo saaray uu leeyahay qaybinta iyo qorsheyntaba waxa leh dawladaha hoose sidaa daraaddeed Somaliland shuruucdii ay samaysatay sida sharciga law number 17 waxa lagu baysgareeyay sharcigii 79 ilaa 83 ee qaybintana ay howlaha dawladda hoose lahayd qorsheyntana ay lahayd howlaha guud Badri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa